aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane gudoomiye mudanayaal marka hore waxaan si weyn ugu mahad celinayaa mudane Gavin Williamson oo ah xildhibaan si dhow ula socda Soomaaliland waxaan ku hambalyanayaa dadaalka uu sameeyay iyo talaabada hor socodka ee uu qaaday xoojinta xiriirka labada wadan mudane Gavin Williamson oo hore isagoo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ingiriiska ama xogayaha difaaca Ingiriiska ayuu Soomaaliland safar ugu yimid waxa uu xoogaal dhow u yahay horumarka daldhis iyo dawlad dhis ee aynu gaarnay 30 sanadood u dambeeyay mudane gudoomiye mudanayaal qarannimada ay shacabka Soomaaliland gaareen oo ah mid buuxisay dhammaan shuruudaha sharciga caalamiga ee u dhigay dawladnimada waxa uu u qalantaa inay hesho aqoonsiga ka soo daahay mudane gudoomiye mudanayaal ka gudi arrimo dibadeed ahaan waxaanu si dhow la soconnaa dadaalada ka socda meelo badan oo kamid ah dunida oo ay xukuumadda iyo shacabka qurbajooga Soomaaliland ka wadaan si loo helo xiriir wanaagsan iyo ictiraafka baadi goobno mudane gudoomiye mudanayaal ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo kamid ah shacabka Soomaaliland qurbajooga gaar ahaan Ingiriiska iyo saaxiibada Soomaaliland ee Ingiriiska ee dadaalada laba kacleynta ah ka bilaabay raadinta iyo kamid dhalinta aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane gudoomiye mudanayaal waxaan soo jeedinayaa inaad ugu raacdaan inaynu si rasmi ah u hambalyeeno oo isu garab taagno dadaalka socda Ingiriiska iyo dooda uu mudane Gavin Williamson maanta soo dhigi doona ka baarlamaanka Ingiriiska waad mahadsantihiin